ciidamada Soomaaliya ayaa kala wareegay fariisin ay ku lahaayeen ciidamada AMISOM degmada Warshiq oo kamid ah degmooyinka Hirshabelle gaar ahaan degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa la wareegay sugidda amniga degmada Warshiq iyadoo militeriguna uu fariisimo ka samaysan doono wadooyinka halbowlaha ah oo isku xira degmada Warshiq iyo degmooyinka deriska la ah. munaasabad kooban oo ka dhacday xaruntii ay baneeyeen ciidamada AMISOM oo ay la wareegeen ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, Hirshabelle iyo AMISOM. waxaan ugu horeyntii halkaas ka hadlaysay ayaa xilka gudoomiyaha degmada Warshiq Axmed Xuseen Axmed Shiidka wuxuuna sheegay in ciidamada AMISOM aysan ka shaqeyn jirin amniga kaliya oo ay qaban jireen howlo bini'aadanimo. wasiir markaa runta ku sheego shaqada ay nala hayeen kuma ekeen amni kaliya qaab samafalna u shaqeynayeen daawooyinka ma waa sida dawacdeeyaha iyo masaska iyo soo cuno lagama helo daawooyinka xirooyinkan oo MCD-da iyaga ayaa noo keeno haddii aan intii ku bilaad markay waayaan bawr inta saaraan ay geeyeen xalale. saraakiisha AMISOM halkaas iyana ka hadlaya sheegay qorshahan in uu soo bilowday 2018 maantana la joogo meel dhalkiisii waxayna sheegeen in ay si tartiib ah ugu wareejin doonaan ciidamada Soomaaliya qaybo fara badan. taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle gaashaanle sare Xasan Dhiciso Xasan iyo taliyaha guutada labaad ee qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Korneyl Sane Cabdulla ayaa ballan qaaday in ay amniga si wada jir u sii doonaan. laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay xerada Warshiq amniga Warshiq waxaa la wareegay booliska Soomaaliyeed dowlad goboleedka Hirshabelle oo gacan ka helaya ciidamada xoogga gaar ahaan qaybta 27 oo ciidamadii hadda tababarka loo xiray aan ugu talagalnay inay la wareegaan laakiin hadda ciidamo ku meel gaar ah oo si digi doono gaarsiinaya ciidamadaas oo aan sugayno dowladda Soomaaliya aan ka sugayno inay noo qarbayso. waxaan kala shaqeynaa haday waxaan kala shaqeynaa biyaha waxaan kala shaqeynaa baraf waxaan kala shaqeynaa xal waxaan kala shaqeynaa hadale iyo raagaal haddana waxaan diyaarinahay ciidanka booliisku meesha ay soo doono soo degaan inaan ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse wuxuuna ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay guul u soo yeetay in ay ciidamadoodu la wareegaan goobaha ay baneeyaan ciidamada AMISOM. maanta ku faraxsanahay inaan joogo la wareegidda labada ciidankeena Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliska Hirshabelle iyo ciidanka AMISOM ay ku wareejinayaan degmada Warshiq. waxaa cad warshaha kala duwanka inuu si fiican u socdo oo aan maanta markhaati u nahay ciidankeena Soomaaliyeed inay la wareegayaan degmada Warshiq. Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka degmada Warshiq gobolka Shabeellaha Dhexe.